maamulka dawladda hoose ee degmada Sallaxlay ayaa maanta ka fuliyay degmadaasi ololo lagu baneynayo wadooyinka magaaladaasi dhexmara ololahan oo kamid ah mashruuca wada baneynta dhismaha wadooyinka magaaladaasi ayaa ugu horeyn maayarka degmada Sallaxlay Ismaaciil Yuusuf Hussein Shini oo ololahan ka bilaabay degmada Sallaxlay ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu socon doono muddo 10 cisho ah taas oo lagu baneyn doono buu yiri 6 kiiloomitir oo magaalada gudaheeda waxaan ugu baaqay bulshada degan meelaha la baneynayo ee wadooyinka ah inay baneeyaan lana shaqeeyaan maamulka degmada Sallaxlay waxaanu ugu baaqaynaa dadka reer Sallaxlay inay u hoggaansamaan qorshaha iyo nidaamka aynu u sameynayno si ay bilicda magaalada u hagaagto qof kasta oo doonaya inuu wax dhistaan uu garto meesha bisanayo meesha waxaan ugu baaqaynaa dadka ay wadooyin ku soo hagaageen inay iyaguna ka furaan guryaha ku yaala oo ay ka guuraan dayro kooban ay ka guuraan jeedna in barnaamijkaas suulaysan lagu dhamaan doono magaalada noqon doonto magaalo ku dhacdo dhinacyada ka dhisanto xaq hore u socoto xaq dib u socoto qof walba meesha uu doonayo ku haboon u dhisto geesta kale xogayaha dawladda hoose degmada Sallaxlay Ibrahim Cabdi Ahmed ayaa isaguna sheegay inay hawshani tahay mashruucii ugu horeeyay ee wada baneyn ah ee markii ugu horeysay laga hirgeliyo degmada Sallaxlay waddan weeyaan 20 sanadood soo socda degmada Sallaxlay waxaan doonaynaa inay noqoto caasimad marka waxa weeyaan waa fidintii magaalada waxaan wadnaa wax iyaga u dana wadadan beer iyagu beerkooda dhex maraysa qofka ay gurigiisa wadada u jiidhaa waa inuu daxag kale u wareego weeyaan waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer Sallaxlay inay si wanaagsan noola shaqeeyaan haddii aanay nala shaqeynin socon mayso sababtoo ah imika guryaha ka dhisan wadooyin dhexdooda وبلا قرش نقول لسه ودوين باي مكان جيري ساي فهمان إني دستان بالمناسبة